Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaalaha waa idin salaamay. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago macmacaanka ciida. Ciid mubaarak, meel walbo aad dunida ka joogtaan farxad iyo ciida. Maanta waxaan suubiyey waa basbuusa. Waxaan ka suubiyey iyo balsaan u suubiyey insha Allah la socod wanaagsan. Inta waxaan ku haystaa salmonella, heavy cream, caanaha culus. Salmonellada waa 2 koob. Koob oo maxayda subag ah ama butter, baking soda iyo cusbo qaada ah. Waa kana salmonellada saas u qorantaa. Marka insha Allah intaasaan ka sameynaa. Marka hore waxaan isku qasayaa inta qalalan. Waxaan ku shubaa waa cusbo, waxaan ku darsanaa baking soda. Intaasaan maxaa la dhihi jiray si fiican si isu qaadato. Aan marka hore walaaqayaa. Markay si fiican isu qaadato waxaan ku shubayaa intii qoyaneed insha Allah. Marka waxaan ku shubayaa heavy cream kii caanihii cuslaa iyo subagii ama butter aan dhalaaliyey oo koob waaye. Heavy cream kana koob waaye asagana. Marka intaasaan si fiican iskugu qasayaa. waa macmacaan saaid u fudud waqti badan aan ka galaynin. Marka insha Allah cida waxaa looga soo tuuri karaa subaxa ciida soo kulul maasha Allah. Waqtiga ciida laga soo laabtay macmacaan ahaan gees looga dhigan karaa miiska maasha Allah. Saaid u fudud. Hadda waa kaasa si fiican u soo qasay. Marka birtiya maxaa la dhihi jiray aan ku dubi lahaa, aan ku karin lahaa, ovenkan ku gelin lahaa. Aan saliid soo marsanayaa waa idin tusaa insha Allah. Saliid, butter waxaa haysata maxaad marinaysaa birtaas. Ama saxan. Waxaa markaas aad ku shubaysaa aad rabto inaad oven ku geliso. Butterka si fiican igu marsami waaye because waa aad u qabowyahay markaan ku buufinayaa hadda. Kana si fiican ugu buufinayaa. Waxaa muhiim inay ku dhagin leh ama butter ku buufi ama saliid. Marka waa ku soo shubay leeleyna u suubinaya inta oven ka gelinin. Waa kaasa leeleyna u soo suubiyey yacni. Inta marka waxaan ku haystaa almond seeds waaye, mirihi almond waaye. Marka almond kan wuu qaleel waaye mugtahay waa bursiyay saan dhaqso igu fiiqmato waatana. Waa kaasa dad barabta inuu ku fiiqmo saas biyaha dibka u saaro. Ama xoogaa waqti haysana biyo la dhigay sabad ka tagisadeen asaka. Qolofti isdaayinayaan waa kaasa. Maasha Allah. Laakiin sida ugu fudud markaas waqti dad hayno wad bursiine. Taasa fartaada ka cararayaan si kala foqayaan qolofka iyo maxaa la dhihi jiray iyo lafta. Markaan soo yeelo mirihii leeleynkii aan suubiyey aan ku dajinayaa. Markaan yeelo ovenkan gelinayaa 350 aad u geynaysaa waxaa sugaysaa 30 minutes. Inta markaan sugayo inta iyaga karaa waxaan sii suubinayaa. Waxaan kor ugu shubi lahaa macaankii haddaan suubinayaa. Inta waxaan ku haystaa 2 koob oo sokor ah. Koob iyo bar oo biyo waaye kaasna. Meeshaas waxaa igu jirta liin dhanaan xabadoon miiray. Waxaan ku shubayaa biyihii sokortii aan ku darsanayaa 2 koob aheyd. Asxaabta 2 koob oo sokorta waxaan suubinayaa waa 2 saxan hala idin tusay. Laakiin 2 suubinayaa. Inta waxaan ku haystaa marka heel oo sirib ah aad u culus caraf badan maasha Allah leh. Biyo yar leh ku darsan sida juice ka iskaga isticmaalna waa sirib aad u macaan. Waa heel wax heel laga suubiyey waaye marka
waxyaabaha macmacaanka saa markaan u karsadana waa ku darsadaa. Waa kaasaa 2 qaado camal aan ugu darsadaa isagana. Maasha Allah. marka wuu soo buriyey siribkiisa id maasha Allah. Siribki diyaar u soo noqonaya. Saxankii aan soo bixiyay. Marka saxanka markuu saa u kulul yahay waa ku fiican in lagu shubo siribka. marka hadhowdi wuu dhuuqaya macaankaas dhan laftu ka galaya marka yaa maasha Allah oo ku soo baxaya basbaasaha. markan asxaabta kan geesaan iskaga dhigaa kan kale aan sugaya marka maasha Allah. saasaan ku soo wadaya. kii kalena waa kan ii soo baxay. isagana waa diyaar. maasha Allah waa kaasas quruxdaas ku soo baxay ilaa uu ka qabooban sugeynaa. waa ka soo laabtay uu qaboobay waa kaasa maasha Allah. dhaxda soft